Bismillahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan idinla wadaagayaa mowduuc muddo 15 sano ku dhow aan baaris iyo tijaabin ku waday, kaasoo ku saabsan daaweynta nabraha iyo boogyada macaanka uu keeno iyadoo loo adeegsanayo malabka. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalada East End. Sida la wada ogyahay, dadka qaba cudurka macaanka waxay u nugul yihiin nabro ama boogo badanaa ku samaysma lugaha iyo cagaha hoostooda. Sababta ka dambeysana waa 1. Macaanku dhaawaco dareensidayaasha lugaha, taasoo keento in qofka si sahlan dhaawac u gaaro, waqti dambena lagu baraarugo nabarku fashfashay. Tan labaad waa macaanku ciriiri ka dhiga xididada lugaha, taasoo xanibaysa qulqulka dhiigga kadibna daahinayso raysashada nabarka. Tan saddexaad waa jeermisku si dhaqso ah u tarmo jirkana ku faafo maadaama uu quudanayo sokorta dhiigga ku jirta oo macaan. Intaasoo la isku daray waxay keenaan in nabraha macaanka aysan si sahlan ku bogsanin, xitaa haddii qalajiyayaal kala nuuc ah la qaato, taasoo weliba keeni karto in bakteeriyada adkaysi u yeelato daawada oo hadhow wax ka tari weyso. Nabarka macaanka meesha ugu badan ee lagu arko waa suulka cagta gadaashiisa. Markuu cusub yahay way sahlan tahay in la daaweeyo, sidaa darteed dhakhaatiirtu waxay dadka macaanka qaba kula taliyaan in subax walba cagahooda fiiriyaan meesha ay wejigooda fiirin lahaayeen. Malabku in muddo ahba waa la ogaa in jeermis dil cajiib ah yahay. Cilmi baarisyo aad u badan oo lagu sameeyeyna waxaa lagu arkay 1. Inuu jeermiska dilo kana hortago inuu tarmo. 2. Inuu qashinka iyo malaxda nabarka ku jirta dibadda u soo saaro. 3. In nudaha iyo unugyada dhinta ee nabarka ku hareeraysan uu jaro. 4. In nabarka gudaha ka soo dhiso xididadana waasiciyo si xubintu dhiig u hesho. 5. Inuu kordhiyo oksijiinta taasoo muhiim u ah raysashada nabarka. 6. Inuu bararka dejiyo, xanuunkana yareeyo, nabarkana qaboojiyo. 7. In markuu nabarka raysto loo baahanin in maqaar lagu talaalo si loo daboolo. Intaas markii la fiiriyo, maanta dunida ma taalo daawo nabraha lagu dhayo oo u dhiganta ama la tartami karta malabka. Sidoo kale haddii la fiiriyo taariikhda ku daaweynta malabka waa arrin soo jireen ah, laga soo bilaabo mamlakadii faraacinada oo jirtay 3000 oo sano dhalashadii Nabi Ciise ka hor, oo waxyaabo badan u adeegsan jireen, taasoo ay ka mid tahay in meydadkooda xitaa ay ku xifdistaan si aysan isku beddelin. Sidaa awgeed, wixii ka dambeeyey sanadkii 2007, shirkadaha daawooyinka sameeyo waxay loolan kulul u galeen in malabkii ka dhigaan kareemyo iyo bamaatooyin, kadibna la ansixiyey in lagu daaweeyo nabraha bogso diiday ama raagay, afka qalaadna lagu dhaho chronic non-healing wounds ama ulcers. Sanooyinkii dambe waxaa soo ifbaxay caddeymo aan la inkiri karin iyo guulo aan laga indho daboolan karin, oo ay ka mid tahay in tiradii bukaanada faraha iyo cagaha laga goyn jiray yaraadeen, taasoo ku qasabtay isbitaalada qaar in adeegsida malabka ka doorbidaan daawooyinka kale markay la tacaalayaan boogaha qaarkood. Shakhsi ahaan, bukaanadii aan ku daaweeyey ama kula taliyey isticmaalka malabka kadibna alle kaga caafiyey boogo muddo dheer dhib ku hayay lama tira koobi karo. Hordhaca natiijada tijaabadan oo aan ku soo bandhigay bogga Somalidoc bilowgii 2015. Haddii aad faahfaahin dheeraad ah u baahan tahay iyo muuqaal ku saabsan qaabka malabka loogu daaweeyo boogaha, kasoo daawo website-ka. Ugu dambeyn, waxaan kula talinayaa dhammaan dadka la tacaalo bukaanada leh boogaha macaanka, boogaha sariirta iyo boogaha xididada arooriyaasha ka samaysma, afka qalaadna lagu dhaho venous ulcers, inay adeegsadaan malabka saafiga ah haddii ay heli karaan, laakiin waa inaa ilaalisaa shuruudahan soo socda haddii aad rabtid in bukaankaaga dhaqso u bogsado. 1. Marka ugu horreysa waa inaad nabarka nadiifisaa oo wixii qashin ama unugyo dhintay ka qaadaa una samaysaa debridement, oo markuu nabarku fresh noqdo dhiig nadiif ahna ka yimaado, kadib malabka ku shub, faashadna saar. 2. Dhaymada malabka waa in loo dhexaysiiyaa 5 ilaa 7 maalmood, meesha dhaymada kale badanaa lagu taliyo in maalin dhaaf laga dhigo. 3. Markuu bukaanka soo laabto, hadduu nabarku qalalan yahay waxba ha dhaqin, malab cusub ku shub kadibna dabool, laakiin hadduu nabarku wasakh leeyahay waa inaad ka qaadaa oo nadiifisaa inta aadan malabka isticmaalin. 4. Kula tali bukaanka inuusan xiran kaba daboolan inta nabarku uu ka bogsanayo. Waxaa kaloo muhiim ah in faashadda lugta ku daboolan laga ilaaliyo qoyaan iyo wasakh. 5. Raysashada nabraha macaanka waxay qaataan inta u dhaxayso 14 ilaa 50 maalmood, laakiin ogow hadduu marka hore caabuqa nabarka uu lafta gaaray, xubintuna ay madoobaatay noqotayna wax loo yaqaano gangrene, malabku waxba kama tarayo, waa inta dhimatay in la jaraa inta malabka aan la bilaabin. Fadlan faafi fariintan oo naf badbaadi, waana mahadsantahay.